السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا غيرت يوتيوب وين سلامي عشركنا wuxuu ku saabsan yahay sidaan kombiyuutarkeena ugu soo degsanin Photoshop CC oo free ah. marka insha Allah waxaan isticmaalaynaa uTorrent ayaan isticmaalaynaa sidaan ay ku soo degayaa 64-bit 32-bit oo Photoshop CC oo 2015 iyo 16 ba kadib notepad-ka labada file ayaa nagu save gareysan marka description ayaan soo dhigay insha Allah bidna karim marka linkigan kan kood waa kan labaadna waa kan marka kan labaad aan tijaabinayna si aan u aragno marka koowaad copy de browser-ka fur kadibna paste ku dheh kadibna enter de sidan ayuu kugu soo degayaa kadibna waxaad leedahay yes de okay aan ka wadaa kadibna okay ayaa leedahay filekan hore ugu jira kan remove waa inaan ka dhahaa kama kan ka remove gareeyo kadibna aan dhaho linkiga ayaan add URL ku dhufto si automatic ayuu u qaadanaa fileka yes haddaan dhaho sana kugu soo baxaa 32-bit iyo 64-bit ba marka haddaartid labadooda waa haddaad downgareysan haddaartid kii aartid inaad download gareysatid jaaka waa inuu kuu saaran yahay 32 iyo 32 iyo 64 ba kadibna yes ama okay linkiga labaad tijaabinaynaa kadib linkiga labaad tagna copy aan dhahno isla markii haddana stepka kale labadaba dhinac waxaan inuu tijaabinaa sida aragtaan kadibna file tag add URL tag kadibna yes dooro kadibna fileka sida ay kugu soo degayaa kadibna markuu ku soo dego sawirkan wuxuu ku xaqiijinayaa sida ugu shubi lahayd labadaba waa kana kadibna okay ayaa leedahay kadib sidan ayuu kugu soo degayaa marka ani hore ayuu kombiyuutarkii ku jiray hojida 32-bit iyo 64-bit kadib stop ayaan iska loo hoos ka soo dhig kadib folderka installation-ka ku jira ayaa tagaysaa kadibna installation ayaan sameynaynaa kadibna double click si setup-ka kadib internet-kaaga xir janji adapter-ka tag kadibna disable ka dhig internet-kaaga si hadhow OID iyo wax badan ku weydiinin kadibna iska soo xir kan iska xir kan installation ku sameynaa kadib waxa try dheh saa unlimited u heshid kadibna sign in dheh marka halkan ID kuma weydiinaa later leedahay sababtoo internet-ka ka xiran kadibna accept dheh kadibna install haddii internet ku furan lahay sign later kuma dhiileen kadib okay leedahay sababtoo koodka ilaa koodka ka dalban lahay internet ma ka xirtay koodka ma dalban internet-ka ka xiran markuu ku dhaco dib ayaan u soo hagaajinayaa leedahay bis dhaxdhe mana kadibna launch ana waa leedahay Photoshop-ka sida u furmo kadibna later leedahay kadibna free trial dooranaysaa kadib Photoshop-ka sidan ay ugu soo furmaa marka iska soo xir labada shay ugu muhiimsan ah noo dhiman si uu si fiican kugu shaqeeyo kadib waxaad tagaysaa start-ga waxaad raadinaysaa run kadibna waxaad ku qoraysaa c/window/system/device/etc kadibna enter ayaa leedahay kadibna hostiga ayaa tagaysaa right click copy ayaa soo doonaysaa kadibna desktop ayaa paste ku leedahay kadibna double click ayaa siinaysaa notepad ahaan ayaad u furanaysaa kadib koodkii ka xanibi lahay ayaa dib u aragtaa inaad soo koobiyeysid haddii koor hore ugu jiray ka tar meeshaas oo Adobe leedahay kadibna koodkan ayaad soo download gareynaysaa macnaha soo koobiyeynaysaa copy dheh kadibna iska soo xir kadibna inta paste ayaa ku leedahay kadibna file tag save kadibna iska xir folderka ugu hornaa oo hostiga dragging ku sameey ku dhex tuur kadibna replace dheh kadibna continue ka dooro kadibna sidaas ayuu copy kugu sameeyay kii kugu dambeeyay marka waa inaad ka soo copy gareysaa waa inaad ku laabtaa folderka meel Photoshop kugu jiray kadibna noocu yahay 32 iyo 64-bit noocu waa inaad soo qaadaa iska tijaabi meeshaan muhiim ah hadda file qaldan ku shubtid Photoshop-kaas ma ku shaqeynayo copy dheh kadibna this computer C-ga file program kadibna waxaad tagaysaa Adobe kadibna inta ku leedahay right click paste continue replace leedahay kadib continue leedahay kadibna iska xir fileka marka dib u fur in uu shaqeynayo in kale Photoshop-ka marka saan ku furmay kadibna
tijaabi inuu shaqeynayo oo shaqeynayo helbiga tag oo jeeda uu active karisiya marka boom sidaas kugu shaqeynaa insha Allah biidna kariim dadka badana dhibaatada ka haysato inay photoshopka ay downloadsan wayaan sida ay u downloadsan karaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh, wajazakum allahu khayran.